ciidamada Ruushka ayaa u dhow inay gudaha u sii galaan magaalada caasimadda ee Kiev ee wadanka Ukraine kadib markii uu Ruushku weerar dhinacyo badan kaga qaaday wadankaasi. Dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine waxa uu saameeyay dhammaan gobolada dalkaasi, waxaana si aad loogu dareemayaa saameynta burburka lixaadka leh ee guryaha shacabka iyo goobaha ciidamada sida keedka hubka raadeerada ay isticmaalaan ciidamada Ukraine. Diyaaradaha Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa la arkayay ayagoo isku adeegsanayay hawada sare iyadoo dagaal uu ku dhaxmaray meel u dhow caasimadda wadanka Ukraine ee Kiev. Ruushka ayaa bunduq ku soo rogay dekedaha Ukraine ilaa amar dambe badda ayaa laga xiray nooc kasta oo gaadiid ah. Hawada ayay sidoo kale sheegeen in Moscow ay xirtay. Moscow waxay u soo jeedisay ciidanka Ukraine inay hubka dhigaan oo isdhiibaan saacado gudahooda sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Moscow. Mareykanka waxa uu ku hanjabay talaabo dheeraad ah in laga qaadi doono Ruushka iyo in loo duceeyo Ukraine. Qaramada Midoobay waxay ku baaqaysaa in si naxariis leh Putin looga codsado inuu dagaalka ka joojiyo shacabka iyo dowladda wadanka Ukraine. Xukuumadda Kiev waxay ku eedeysay in dalka Belarus uu dagaalkan ku soo biiray, hase yeeshee ma jirto cadeymo ay soo bandhigtay dowladda Ukraine taasoo cadeynaysa in Belarus qayb ka tahay dagaalku ku soo qaaday wadanka Ruushka ee Ukraine. Dhinaca kale, xogayaha guud ee NATO ayaa sheegay inaysan ciidamo u dirinin Ukraine, waxaana sheegeen inay dardarin gelin doonaan qorshayaashooda difaaca si uusan dagaalka ugu fidin dhulka NATO. Mareykanka iyo Britain oo markii horeba u oleynayay in Ruushka laga go'daamiyo dunida inteeda kale ayaa hordhigay Midowga Yurub cunaqabateyn culus oo ah kuwo aad u ballaaran si loo naafeeyo dhaqaalaha Ruushka. Dowladaha Faransiiska iyo Jarmalka oo Yurub hogaamiyay ayaa ku kala qaybsamay arrinkan. Paris ayaa ku biirtay safka Washington iyo London, halka dalka Jarmalkan uu ku diiday arrinkaas isagoo sheegay inaysan macquul ahayn in maanta Ruush la go'aamiyo oo Yurub aysan lahayn badalka gaaskiisa. Tan kalena haddii Putin la fogeeyo uusan joojinin dhibaatada ay ka sheeganayaan Jarmalka, taasoo caqabad ku ah reer galbeedka. Dowladda Ukraine ayaa ka codsatay Turkiga inuu marinka dagaalka ka xiro biyaha badda madow. Waxaa sidoo kale Turkiga ugu baaqday in maraakiibta Ruushka ka hor istaago isticmaalka badda madow, waxaana ku baaqaynaa in marinada hawada ay ka xiraan ciidamada Ruushka. Codsigan ay laba daran mid door u ah Turkiga oo xubinka ah NATO isla markaana Ukraine iyo Ruushka xad kala leh badda madow, xiriir fiican la leh labada dal. Heshiis la gaaray sanadkii 1936 ayaa dhigayay in Ankara ay xukunto marinka badda madow ayna xadidi karto maraakiibta dagaal ee adeegsanaya xilliyada dagaalka ama haddii ay qalqal dareento.